Norway oo aad uga soo horjeeda isticmaalka iyo lahaanshiyaha hubka nuclear-ka ayaa hadda ku waramayso in ay isu diyaarinayso in ay qayb ka noqoto wadamada diyaarsanaya hubka nuclear-ka. Faransiiska ayaa ka dhawaajiyay in uu bilaabi doono casriyeynta hubkiisa nuclear-ka, iyadoo ay Norway hadda sheegtay in ay diyaar u tahay in ay kala hadasho iskaashiga nuclear-ka ee qaaradda Yurub iyo sidii loo xoojin lahaa. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Norway, Espen Eide, ayaa isagu ka dhawaajiyay in ay Norway diyaar u tahay in ay kala hadasho casriyeynta iyo sidoo kale in ay qayb ka noqoto horumarinta hubka nuclear-ka ee isku difaacayaan qaaradda Yurub. Madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dhawaajiyay in markii ugu horeysay tan iyo 1992 ay Faransiisku hadda bilaabayaan casriyeynta iyo tayeynta hubkooda nuclear-ka. Dad badan ayaa ku taageeray Faransiiska in ay soo jeediyaan in iskaashi lagala sameeyo dhanka horumarinta iyo soo saarista hubka nuclear-ka marka ay timaado qaaradda Yurub oo hadda wajahayso xaalado kala duwan oo dhanka amniga ah. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Norway, Espen Eide, ayaa isagu tilmaamay in midowga Yurub uu hadda qaadanayo mas'uuliyad weyn oo ku saabsan dhanka amniga Yurub, taasi oo gacan ka geysanayso xoojinta iskaashiga wadamada ku bahoobay gaashaanbuurta NATO iyo xulafada midowga Yurub. Wuxuuna sheegay in ay diyaar u yihiin in ay kala hadlaan arrintan sidii loo xoojin lahaa iyo sidii looga wada shaqayn lahaa heshiis iskaashi oo ku saabsan tayeynta iyo tabarsiinta hubka nuclear-ka ee qaaradda Yurub, taa oo uu ka hor sheegay baarlamaanka waddanka Norway oo uu waramayay. Waxa uuna sheegay in siyaasadda hubka ee Norway ay adag tahay, wuxuuna intaa ku daray in hubka nuclear-ka uusan Norway ooli doonin xilliga nabadda, taa oo ka dhigan xilliga kale in ay suurtagal tahay in la keeno Norway. Ururka ka soo horjeeda hubka nuclear-ka ee Norway ka dhisan ayaa iyagu walaac xoogan ka muujiyay. Waxa uuna sheegay madaxa hay'adda No to Nuclear Weapons, Daniel Frisjo, in ay arrintani ka dhigan tahay tartan cusub oo hubka nuclear-ka iyo isticmaalkiisa, taasoo uu sheegay in ay si adag uga soo horjeedaan ayna u cambaareynayaan. Arrinta ah in hubka nuclear-ka ay Norway hadda ku fikirto iyo wadamo badan ayaa ka dhigan culayska xoogan ee dagaal ee dunida soo wajahay, iyo sidoo kale in lagu xadgudbayo qarannimada jiritaanka wadamo badan oo adduunka ah, taa oo loo adeegsanayo awood militari. Waxa ayna dunidu hadda bilowday in ay awoodeeda militariga iyo hubkeeda kala gedisan ay dhisato si ay isku difaacdo, maadaama sharcigii dunida lagu yaqiinay uu hadda daaqadda ka sii baxayo kadib markii madaxweynaha waddanka Venezuela gurigiisii laga soo watay, waddankiisana lagu weeraray, haddana lagu maxkamadaynayo waddanka Mareykanka, taa oo ay dunidu daawanaysay ilaa iyo haddana wax aysan ka qaban. Waxayna taa ka dhigan tahay sharci, kala dambeyn iyo nidaam inuusan adduunka jirin, ee ay tahay qof walbo awoodiisa militari iyo difaaciisa inuu ku tashto. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.